maanta oo taariikhdu tahay 25 Juulaay 2020 kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, oqaasha, siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo waxgaradka ku nool Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ay ka soo saareen qodobada soo socda. waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. waxaan sidoo kale bogaadinaynaa in lagu heshiiyay in doorasho la wada ogol yahay ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. waxaan ka digaynaa in dalka la geliyo hubal la'aan siyaasadeed taas oo keenaysa qalalaase siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale. waxaan marnaba la aqbali karin muddo kororsi marka uu dhamaado waqtiga hay'adaha dastuuriga ah ee dalka. waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay dhamaystiraan heshiiska doorashooyinka ee ay ku gaareen Dhuusamareeb. waxaan soo jeedinaynaa ama u soo jeedinaynaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay soo celiyaan wada shaqaynta baarlamaanka si loo gaaro howlaha wax ku oolka ah ee baarlamaanka dalkana looga gudbiyo xilliga kala guurka ah. wabillahi tawfiiq.